إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بإذن الله تعالى عاوة جمعة كلمة كوبان وحين كوران دونا إنه يسبدل لنا ما أدنى رمضان كور لبردن بنوين كي دونا بإذن الله تعالى دنك كوبان waxyaabo laynaga rabo inaynu iska ilaalino oo aynu ka feejignaano kana fogaano haddii aynu ka fognahayna inaynu walaaladeenna kale uga digno iyo arrimo aynu u baahannahay inaynu ilaalino waana afar arrimood waana cibaadaadka bisha ramadaan ay ku ururasay ku wareegayso afarta arrimood sidii loo ilaalin lahaa ee looga faa'iideysan lahaa ee loogu dadaali lahaa axaadiista ina jeclaysiinaysa iyo wixii aayaad ku soo arooray baan wax ka oran doonaa biidni illaahi tacaala walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa abuuray wakhtiga addoommahana isagaa abuuray kuu doonuu jeclaadaa kuu doonuuna khayr ku khasisaa 12 bilood buu ilaahay abuuray afar ay xurmo leeyihiin afartaa xurmada leh bisha ramadaan kama mid aha laakiin afartaa waxyaabo badan oon ku sugnayn baa ku sugan iyada bal 10 cisho ugu dambeeya waxay culimmadu isku hayaan maalmo ilaahay uu abuuro ma maalmahaasa ugu fiican mise 10 dulxijja ugu horeeya sidaa daraaddeed bisha ramadaan waa bil khaasa waa bisha mu'miniinta cibaadaysta weeye 11 bilood baynu cunaa cabnaa welibana nebi maxamed sala allahu calayh wasalam waxaa loo sheegay cabdillaahi ibnu camr ibnu alcaas inuu cibaadada aada ugu dadaalo dabeeta rasuulku wuxuu dardaarmay sala allahu calayh wasalama soonku maalin walba soomayay inuu ku bedelo inuu bishii 3 cisho qura ka soomo waxaanuu rasuulku ku yidhi sala allahu calayh wasalam siyaamu 3 ayaamin min kulli shahr siyaamu dahri 3 cisho oo aad ka soomanaato bil walba waxay kaaga dhigantay sanadkii oo dhan oo macnuhu uu u dhacayo sanadku wuxuu ku wareegaa 360 cisho ayuu ku wareegaa 360kii bishii ramadaan waxay goosanaysaa 300 oo waa 30 cisho oo 10 lagu dhuftay wal hasanatu bi 10 amthaliha saddexda markaad ku dhufato 30ka 300 bay noqonaysaa 10 ku dhufo waxay noo soo hadhay 12 bilooda kale oo min 3 cisho laga soomayay 3 cisho bil walba
toban ku dhufo saddexda cisho soddonkii bay ku buuxinaysaa saddex toban lagu dhufto waa soddonkaasi bil walba saddexda cisho isku fuuqsanaya ee aad soontay 360kiina saasaad ku soomantay waxa uu rasuulku sallallahu alayhi wasallam xadiiska ku sheegay siyaamu dahri waa qof sanadkii oo dhan soomana oo kala tahay bimaana maadaama oo bisha ramadaan qofku uu soomayo haddii soon kale uu soomayo isniintii khamiista oo kale looma diidin haddii uu soomayo ayaamul biidkiya 3 cisho kale dheeraad looma diidin laakiin rasuulku wuxuu aad u ammaanay maalmaha aan ramadaan ahayn laba soonka koobaad waa inuu qofku 2 cishana cuno maalinna soomo waxaanu rasuulku sallallahu alayhi wasallam Abdullah ibn Umar uu ku yiri lawadittu anni utiqtu waxaan jeclaan lahaa in la karsiin lahaa inaan 2 cishana cuno maalinna soomo soonka labaadna waa 3 cisho bil walba laga soomo waana qofka sanadkii oo dhan sooman soonkuna qiimo weyn buu leeyahay maalin kaliya qofka ilaahay dartii u sooma waxa uu rasuulku sheegay sallallahu alayhi wasallam in lagaga fogeynayo wajigiisa naarta ahadiista xadiday 70 sana lagaga fogeeyo wajigiisa naar macnuu wuxuu dhacayaa naar ma galo qofka muslimka ah ee ilaahay dartii u sooma waayo soonka waxa ku jira arrin aan ku jirin cibaadaadka kale dhammaantood cibaadaadka kale oo dhan waana ikhlaas aanu marnaba riyaa geli karin soonka istusnimo ma gashaba cibaadaadka kale oo dhan laga yaabaa istusnimo inay geli karto laakiin soonka istusnimo meelba kama soo gasho hadduu qofku isleeyahay dadka istus dee intuu cunuuc cabuu afka boodhka marsan la odhan laaban soomanay laakiin hadduu soomay oo daacaday ka tay oo xilligii soonka loogu talagalay intuu bilaabay xilligii la afuray uu gaadhsiiyey istusnimo ma gashaba sidaa daraaddeed baa xadiisul qudsiga saxiixa wuxuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam ilaahay baa yiri kullu amal ibn aadam lah yudaacafu alxasana bi'ashri amthaliha illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi amalada bani aadamku qabanayaan mid walba isaga lagu abaal marin wixii uu sameeyay xasanada waa loo tabanlaabi doonaa mooyaane soonka buu rabbi yidhahay qudsiga fa innahu li wa ana ajzi bihi isaga ana iskale abaal marintiisa ana ku abaal mariya adoonka culimadu laba waji bay ka eegeen xadiidka waxay yiraahdeen soonku waa sabir oo saddexdii nooc ee sabirka ku jira as-sabru ala taa'a was-sabru 'an al-ma'siyah was-sabru ala aqdar Allah al-mu'lima saddexdii nooc ee sabirku way ku jiraano dee soonkii taacadii ilaahay uu amray uu ku soomaya oo amarkii ilaahay buu qaatay macsiyadii uu ka soomayaayo inuu afuro ilaa xilligeedii la gaadhay macsiyo yahay waa ka soomay afka qura kamu soomin indhuhu ka soomay oo dhagu ka soomay oo ibtu ka soomay qadarkiina waa ku sabro gaajada iyo kulaylka iyo harraadka iyo siifada ka soo baxay saafkiisana waa ku sabray intaas oo dhamin waxay noqonaysaa asabru ala aqdar ilaahi mulimay soo gudagelaysa culimada qaar waxay dhahdeen ma wajigan labaadna waa ikhlaaska ku jira soonku wuxuu ka dhameystiran yahay ikhlaaska soo cibaado kale ku jira saadaradeed bisha ramadaan waa taanis qofkii la siiyay waa bil uu ku saxo 12 bilood ee kala wixii ka khaldamay waa bil uu ku kordhiyo darajadiisa 12 bilood ee kale haday u wada hagaagsanayeen inuu siyaadiyo sii kordhiyo hadduu juz akhri jiray quraana laba akhriyo haddii uu sadaqa wax yar la bixi jiray uu ziyaadiyo wayno iman doonta biidni illaahi tacaala afarta cibaade aad loogu dadaali doono walaalayaal waxaa nabi maxamed la faray sallallahu alayhi wasallam inuu toosnaado suuraddii ciraysay nabiga ee markii la weydiiyey lagu yiri cira ka soo baxday oo rasuulku sallallahu alayhi wasallam suuradda akhrinteeda iyo waxa ku sugan fikirkan ka fikiriyaan la ciraystay suuratu huud ah waxa lagu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam fastaqim kama umirta nabi maxamed alayhi salatu wasalaam u toosnow sidii lagu faray bimaana wuxuu quraanku ku faray ku toosnow oo ha ka leexanin wixii uu quraanku ku diidayna ka toosnow oo ha u leexanin sidaa daraadeed baa Umar Khataab wuxuu yiri istiqaamadu fal istiqaamatu
أن يستقيم المرء على الأمر والنهي وأن لا يروغ روغان ثعالب استقامة لفرق وإنه أمرك كتوسنادو نهينا كتوسنادو كفوغادو وإن أنو سيدا دعوة لأهن عدة دعوة تقانا هريراها إيقمدو دمديستو سادرات يدبان نبي محمد مركو لقويد توسنو انتا لقا قما هدني وحليرين ومن تاب معك عدي مؤمنين توبتك انت معاك إلى قيام الساعة أما معيسي هينو يلفردين أما معيسي ينو شريعتي سي راعيين يقولنا هتوسنادان بلغين أو سيدي الله فرين إنو أتوسنادو أتوسنادو قف والبا وحي لفرين هفرتونادو وحي لقربين هكربتونادو إلهي وحي الراعي أو كسدحي ولا تطغوا حد كهرنافنا وحد قدبنا حد قدبكنا ووحي لغو فري أو تكتكتو يا وحي لقربين أو تكد عدون وابا انتا إلا نحب بعد ليدو عدون باطي انتو إلهي كور رمشي لنا فريقنا وتلك حدود الله وحلينو دي ديبالنا هذا وتلك حدود الله حدود دي لغو دقيها كقدبين أو هرنافن هالراعين هودا هذا إيا نفتانا ولا تدغوا إلهي وحده سبحانه إنه بما تعملون بصير وحد ثمين الثاني إلهي وأركا أو كما قرصونه توسناد أو وحي ليدين سمايا سمايا وحي ليدين ديدنا كتغا ولا ليان بشهر رمضان مركا اتمادون ولا الدقاء ولا قبوبا قفكو وانتوبا انت بشهر رمضان لقوتشلو واحد مداين والراب إنها ياتي حتى عبارتها وهي قلبي جيبا لغا حريا شيطانكي وسواسيني اللوميني سيدا دراديد بالرمضان كهر نفتا انتينو شاندو قادنو اينو كوفنو dhaqamada xun oo dhan dhowr mid baynu xadidi doonaa dhowr kaamil oo kaliya uma jeedne iyo wixii soo raacaba hadaynu ka hufanay Allah inaga ilaaliye hadaynu ka hufanayna aynu walaaladeen uga digno cidda ku sifaysan dhaqanka ugu horeeya waa al-israafu waa loo fariidiyo israafka inta faraha badan leh sidaynu ogsoonahay dadka qaarkood bisha ramadaan markay soo galeysay wax yar ay ka arsantay suuqay galaano alaab badan iyo raashin badan bay dumar guriga soo dhigan qofku markuu gaajoonayo wuxuu israa wax badan baad cuni laakiin hadhow markuu afro waxa yara timirta iyo biyaha iyo markuu yar soo taabto ay faraaq qaadi doona sida daraaddeed suxuur badan in la sameeyo casho badan la sameeyo afur badan la sameeyo hadhowna khashinka lagu daraa waa israaf iyo tabdiir ilaahina subhanahu wa ta'ala raalika maaha iyadoo walaaladeen gaajoonayaan oo abaarahaasi jiraan intaynu guriyaheena buuxino inaynu ku loofarno ilaahay wuxuu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin halo farino xoolihiina ha khasaarin macnu dhacaya ilaahay ma jecleen waa wixii xalaala in la daadiyo la khasaariyo lagu ciyaaro ayuu ilaahay diiday dadka qaar ba israafku way weeyaariyaano waqtigooda ay ku israafaan bisha ramadaan oo qaarkood bisha ramadaan markay maalmo ka hadhay la dhuubay jeexdaano shaxbay soo gurtaan dumnad bay soo qaataano turub bay meel ku tuulaan kadibna way ciyaaraan waqtiga la luminayo ee gaajada la isku weydaarinayo waxyaabaha muharramka ahina waa nooc loo farida kamida waxa rasuulku xadiidka muslim wariyay soo gaarsiiyay man la'iba bin nardashar فكأنما غمس يده أو يمينه في لحم خنزير ودمه قفك عيارة لا دودة ينردشارك أو لا دودة لمعه وحو كدغ يبو نبي صلى الله عليه وسلم يسوغو هيلب دوفار iyo dhiig doofaar faraha kula jira wal u fiirso qof muslima oo bishii ramadaan hilib geel oo bisilo xalaal ka soomana oo xaaskiisu xalaal ka soomana oo caanihi geel iyo biyihii qabooba ka soomana oo ku afraxan ama qof intuu la ciyaaro la dhuu dhiiga doofaarka iyo hilibkiisa faraha kula jiro walaaqiya maanta dhan bal sabiro waxa kamid ah walaalayaan waxyaabaha bisha ramadaan inaynu ka nasahnaana ay tahay alxasad xaasidnimadu amalada muuqda maaha waa amalada qalbiga dega waana nooc gubasho kamid oo qofka gudihiisu gubanayo ololayo waxaana yiraahdeen wuxuu noqonayaa wax ilaahay qofku siiyay ina tiraahdo ma adiga lagu siiyo oo aan ahayn saddexda arrimood rasuulku sheegay sallallahu alayhi wasallam iyo ina tiraahdo ilaahay waxa uu qofkaas siiyay adna yaan lagu siinaya isagana ka qaada labada noocna ka dambaa xun qof quraan bartay oo ku cibaadeysanaya iyo qof cilmi bartay oo dadka baraya iyo qof maal tabcay oo daacada ku bixinaya waa oran kartaa ilaahay sidiisa iga dhiga laguma diidin
laakiin qof gaadhi wato ku xaragoonay allaya hebel oo kale iga dhiga laguma ogola sidoo kale inaad tiraahdo nicmada hebel la siiyay yaa kaba qaado ka suuliya anayaan la siinay iyadana waa arrin aad u daran waxa la wariyay nin labada lugood gidaarka saaray madaxiisana dhulka ku hayo ooyay soo maray nabi Muuse waa la wariyay wuxuu ku yiri maxaa ku dhacay wuxuu ku yiri waxaan la ooyayaan la murugaysanay wansan suuq qalaba gadiya ninkan jaarkaygii neef la u leeyahay ana neef aan leeyahay neefkiisa laba baaldi baa laga lisaa ana kayga hal baaldi baa laga lisaa saasan la ooyaya waxa la yiraahdaa lagu duceeyo ilaahay inuu kaagana adigana laba baaldi kaaga dhiijiyo may buu hay u duceeyina saddex hay u duceeyina maxaa lagu duceeyaa ilaahay waxaad noo baridaa wina Muuse labadayadaba inuu gabna naga noqdo inuu guro inta ilaahay noo heydii waa xasadkii oo ka gudbay nicmada yaa kaaga qaada hebel oo u gudbay yaa labadiinaba idin ka qaada xataa naftiisii buu ka bilaabay inuu xasido xadiis saxiix ah ku soo arooray ma jiro mufassiriinta wariyay waxyaabaha kitaabka laga wariyay wax dhibaato aan ku sugnayn hadii la wariyo sidoo kale waxa kamid ah waxyaabaha la inoo diiday suu dhanni malaha xun ee cid laga malaysto inaad qofuun iska daba dhigato salaamada qofkani waxa suu sameeyaa oo aad daba gasho oo malaxun aad ka malaysto laguma ogola waxaanu rasuulku sallallahu alayhi wasallam iyaakum wadhanna fa inna adhanna akdhabu alhadith iska jira malaha aan ku dhisnayn wax cadayna hadii malihii qofku uu banbaxo isagu in xumaan laga malaysto waa baab hadii laakiin aanu u banbixin in wax laga malaysto xuno aanu sameyn oo leeyahay hebel malaha waa sida oo dadka qaarkood ay u raaciyaan inay daba galaanba waa taleeno diiday waa warka ugu been badan buu nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa kamid ah walaalayaal waxyaabaha inuu baahanay inaynu ka nasahnaano iska ilaalino dulmiga shay kasto la dulmiyayo waxa dulmiga kamida yaa xukun biqidi ma zalla hatta oo soo guda galaya laba ciyaalo oo 10 jir ama 8 jir haday suula ka yimaadaan oo ay ku dhaahdaan khadkan oo kale kaayga farq qurux badan oo kii farta xuma aad u xukunto oo tara kaasa ka farq qurux badan oo dayga taga waa dulmiday kii kale intaas ku soo galaya dulmiga maxaad u malayn doontaan dhulal kala dulmiyo maal kala qaadanayo lagu dhaaranayo ku dhaaro ku dhaween meeside ku qabsa ku qadimaysid loola baxay maxaad u malayn doontaa waxyaabaha faraha badan leh waliba dhulku taaka haduu yahay taako wuxuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam qofka dhaca taako tuwiqahu ila 7 aradin yawm alqiyamah todobada dhulba ilaahay madaxu ugu duwayo qorta maalinta qiyaamah saxaabi asxaabta rasuulka kamida oo mujaabu dacwo aha ayay gabadhi arwal la oran jiray dhul ku qabsatay dhulkan ana la buuri malihid bay tiri ana leh kugu qabsan maayo buuri waan ku siiyay laakiin midhiga maqal ilaahu wuxuu haday been sheegaysa indhaha tir barta iga qaadeen qabrigeeda ka or oo lagu aasa dhulka oo iskaga tagtay iyadoo indha qabtay ka tagtay in yar markay dhulkii haysatay aamiyeen dhalaabay noqoto dambe noqoto dadku waxay oran jirtay saacad bay habaaray ama saxaabiga hebel bay habaaray in yar kadib bohol ka qodnayd ama ceel goof oo ka qodnaa dhulkii ayaa iyada oo hambarsanoo iska socotay dam ku tiri cidba uumay tagin bartii bay ku qurunto ku dhimatay sidoo kale saxaabi asxaabta rasuul kamida ayuu Umar ibn Khattab u diray Iraq dabada nimba u yimid Umar uga askatooniye saxaabigi Umar intuu u yimid qoladii uu soo diray saxaabiga ayaa waxa weydiiyay waxaad kaga cabanaysaan miyay jirtaa waxay ku raahdeen waxba kaga caban mayno nin Aba Sacd la ilaahdo ayaa kacay oo aad u dhaqan xumaa dabada wuxuu yiri wallahi waxaan kaga cabanaynaa waxaanu xaq u lahayna namasiyo cadaaladna naguma kala xukmiyo uu dulmiyay saxaabigii Umar uu ka dhigay inuu Sacd ibn Abi Waqqas aan malaynaya cadaaladna naguma kala xukmiyo waxaan u baahnaynay xaq aan u lahayn namasiyo saxaabiga uu kaco wuxuu yiri sida uu yiri baan ugu daynaynaa ilaahay man bariyay
ilaahayow hadduu been iga sheegay cimrigiisa dheere waa kow fitnooyinkii balaayooyinkana u bansaar saxaabigii sidii buu kaga tegey ninkii wuu gaboobay ilaa sunnayaashiisii ay indhihiisa qariyeen xataa muu dhabeelin sunnayaashiisii baa indhihiisa qariyey oo cad noqday waxaa la yidhi isagoo intaa gaadhi oo da'diisu ay gabowday ayuu haddana hablaha yara intuu waddooyinka istaagu iljabin jiray markaasuu maalin walba qof tuqin jiray isagoo sidii wax qof la xaqiro oo la liido ayuu ku geeriyooduu ku godgalay waxaa ka mid a walaalayaal waxyaabaha inu baahanay inaynu ka nisahnaano iska ilaalinno alcujbu inuu qofku isla dhaco weliba marka xagga cibaadada iyo taacada aynu taaganay inuu qofku isla fagax yidhaahdo waxaana soo gudagelaya hadduu qofku isla weynaado inuu kibro addoommaha kale uu xaqiro oo addoommaha kale uu u arko quraanjo oo kale kii salaami waaya kii fadhiga uga kici waaya iyo kii weynayn waayaba uu calaamad gaara u saarto inuu qofku naftiisa la weynaado uu naftiisa ka weyneeyo dadka kale kibir bay keentaa kibirkana maalinta qiyaame waxaa lagu ciqaabaa qofkii kibirsanaa in quraanjo laga dhigo qaab dad u samaysan waxuu rasuulku yidhi sal allahu calayh wasalam yuxsharu almutakabbiruuna yowma alqiyaamati amhaala adarri fii suurati annaas qofkii iskibirinayey nin iyo gabadhku doonaha noqdee maalinta qiyaame waxaa la keenayaa isagoo quraanjo lee qaab dadna u samaysan yakshaahum udullu min kulli makaan oo dulliga iyo hoosayntu dhan kasta ay ka dabooshay welibana naarta lagu dhex dayn maaya wuxuu nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam yusaaquuna ilaa sijnin fii jahannama yusamaa buulus waxaa la sii geynayaa jeel jahannamo ku dhex yaallaa lagu sii dhexdhaya oo halkaa marka laga soo saaro ee jahannama la geeyo qof xorriyaddiisii hele uu noqonayo falaa xawla walaa quwata ila billah wuxuu kugu soo gelayaa waa laba arrimooda iska moos ciddaad ku aragtana uga dig labuu iska saarayn nebi maxamed sala allahu calayh wasalam asxaabtiisa isagoo dhex fadhiya waxa uu ku yidhi man kaana fii qalbihi mihqaalu darratin min kibrin qofka qalbigiisa dhuudhacas wax leego kibri ku jiro saxaabi asxaabta rasuulka ka mid ah wuxuu u fahmay in kibirka ay ka mid tahay in maryo fiican iyo kaba fiican la xidho markaasaa wuxuu ku rasuulka ilaahayow mid annaga naga mid wuxuu jeceliyay inuu maro fiican hu fiican iyo kaba fiican oo aradbeela u xidhee kibirka miyuu ka mid yahay arrintaasnay soo gudagelaysaa waxuu rasuulku yidhi sal allahu calayh wasalam ina allaha jamiilun yuxibu aljamaal ilaahay wuu qurux badanya quruxdana waa jecelaye alkibiru bal u fiirso bataru lxaqi wa qamtu nnaas kibirku waa xaqa oo laga qooqoo laga tago oo la diido oo laga masuugo nafta in lagu sanduleeyo wa qamtu nnaasi iyo dadkoo la xaqiro oo la yaraysto waxaa ka mid a walaalayaal ballanka baxa iyo qadriga in la yska ilaaliyo dadkan looga digo qadrigu dembiyada aynu sheegnay oo dhan wuxuu kaga duwan yahay waa calaamadaha munaafiqiinta lagu garto oo waxaa rasuulku sal allahu calayh wasalam uu ka mid dhigay calaamadaha munaafiqiinta lagu garto 4 xadiidkii cabdillahi bni camar waxau rasuulku yihi sal allahu calayh wasalam aayatu lmunaafiqi 4 aayadda munaafiq waa 4 ama calaamadda lagu gartaa waa nifaaqii camaliga ahaa ee diinta aan lagaga baxayn waxaa xadiiska qaar rasuulka laga wariyey sal allahu alay wasalam inuu yidhi 4 man kuna fiihi kaana munaafiqan khaalisan kiina 4 ku kulmaan munaafiq badax tiran buu noqonaya isu banbaxay waman kaanat fiihi khaslatun minhunna kaanat fiihi khaslatun min nifaaqin xataa yadacaha ka waslad ka midu ay ku sugan tahayna waslad nifaaqi ka mid ah ku sugan ilaa uu ka tago uu ku sifaysnaanaya kow wuxuu ugu horraysay rasuulku idaa xaddata kadaba hadduu warramo been buu sheegaa xilli kastuu sheekeeyo been buu sheega way macnuhu marmar bay been ka dhacdaa maaha haddii qofka marmar been ay ka dhacdo beentu waa kabiira waana dembi weyn oo naar lagu mutaysto laakiin calaamaadkii nifaaqa ka mid ma aha qofka haddii mar ama laba ay ka dhacdo beenaha qaarkood baaba laga yaaba qofka ajar in looga qoro waxaa ka mida tuu laba qof ku heshiisiinayo waxaa ka mid a beentuu xaaskiisa ku hasaawinayo jacaylka qalbigiisa ugu jira uu been ka sheegayo wax dembi kuma sugna waxaa ka mid a kii dagaalka
خدعة بنت علامات كالنفاق كمدي وبنت العاديستو قفك اللي قبرتين بين عليها هذه لكن مرأي كدعده أما اللبأي كدعده وذنبي وين أو كبيرة علامات كالنفاق معها إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان هذه لآمننا أخي أما يبو رسولك صلى الله عليه وسلم أمانة مالك وكلية مكشو حتى صرت أمانة بقشا إلا ونبي محمد سوى قارسية عليه الصلاة والسلام قفك ورمى يا هدو هريرها إيغو فهي أمانة وأمانه أبها قفك لي قف وحكبو آمني أمانة دي ساو مشي كرتي نبي صلى الله عليه وسلم الصحابي بوحو شاغل هو يدي با كنت إيشا قفو الرسول كل شيء ما يبقى يدي سرت رسولك عليه الصلاة والسلام رسولك صلى الله عليه وسلم waxaan siiba weynayn buu Aisha u sheegay oo ah in Jibriil sanad walba mar Quraanka uu la bandhigi jiro la subcin jiray laakiin sanadkii rasuulku dhimay sallallahu alayhi wasallam laba goor inay Quraanka wada dhameeyeen iyo in Fatima ay tahay ahlkiisa qofka ugu soo haleeli doona iyo inuu rasuulku taawarka inuu dhimanayo alayhi salatu wasallam intaas uu sheegay sir sii weyn ba ma aha in laga qariyo Aisha ku tii sheeg Fatima waxay ku tii ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم سرت رسولك كل شيء ما يوم هذا يضع مركي ضمن رسولك انت وشيكتي انت رسولك ولا امي شيء عليه الصلاه والسلام واذا وعد اخلف هدي وبلن قادنا وكبحا واذا خاصم فجر هدو دودنا وحق قدبه اما قف كل دوديو قاليسيا اما بابو لا دغالماما doodii baa gaadhsiinaysa inuu dambi ka weyn oo ku dhaco afarta calaamaadka nifaaqa buu rasuulku kaleey salaatu wasalaam waxyaabaha inuu baahan inaynu ka nasahnaano shayga ugu dambeeyay tilmaamaya wuxuu yahay al-ghadab arada oo waliba bisha ramadaan iyo soonka rasuulku sallallahu alayhi wasallam manhaj cad u insiiyay haduu qofku caayabu rasuulku soo gaadhsiiyay alayhi salaatu wasalaam ama uu kula dagaalamo هو جوابنا واحد كنت هذا إني صائم قف صوم بني كلمة هذا إني صائم سواء كان له يدرت وصوم من يد وحبي يلمسه أو يستثنوا معها حق عبادات ككلا طاعات ككلا تقرن يسوع سواء كوحلا قرية مال الرياء يسوع نمدنا مقدشوا سينو تلماني أنت واحد نكون جبين دونا كوجد بدونا عمل هذا إنه أبا هني إنه نفيه إننا كإلا لنا ولا لذي إنه وجد دجنه أو أين اللي بين مرنبه بشهر رمضان أفر عمل بدنا لقبتها وكسر أرورين نصوصته أفر عمل بين وحده يساجدون إن شاء الله تعالى عمل كوباد وصنك بشهر رمضان وشهر الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وبشي صنك الواجب يوين وقرنينا صنكنا فذا إيش يسوين وقرنينا يوم وترسولك ينوشى صلى الله عليه وسلم حديث كان سهل بن سعد الباب دن الباب هذا جنة كم إذا إن الله يقان الريان ورسولك شيء صلى الله عليه وسلم ذاتك صوما وكليا كقلب رسولك عليه الصلاة والسلام هذا ما شيء هل كان مدين برابجنا وحي تاي ما دام وبشر رمضان يتي بشي صنك عبادة أقوين إلا قدنا أي تاي وعينوبا هنا إنينو كدد أنه inaynu soonkii cilmi u yeelano soonkeeni inaynu baranno oo cilmi u yeelano hadaynu buug iyo qalin qaadan karayna inaan ka gaarsiino hadaynu qaadan kari weynana waxyaabaha soonka buriya waxyaabaha soonka waajibaadka u ah waxyaabaha soonka inooga baahan yahay inaynu baranno xilliga la suxuuranayo xilliga ugu horeeya xilliga la afurayo inaynu baranno soonka laftiisu inaanu ahayn inuu qofku ka afxidhnaado cunto iyo cabid oo waxa rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu yiri badana mid sooman oo la yakunu lahu min siyamihi illa al-ju' aanu soonkiisa ka helin gaajo mooye wax kale maxay taas ku dhacaysaa dee qofkii laga yaabo inuu dad xanto ama wax kale oo soonkiisii naaqusinaya ama wax yeelaya ama ajarkii naaqusinaya inuu la yimaado sidaa daraadeed baa waxa rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu sheegay haduu qofku soomayo inaanu cunto qura ka soomine ay tahay inuu ka soomo macaasidoo dhan oo iska ilaaliyo iyo inuu taacaadkoo dhan uu u yeedho uu ku dadaalo maadaama maalin qurud ilaahay dartii u soontay
naar lagaaga badbaadinayo maxaad u malaynaysaa soddonka cishaba haddii intaad soonto aad ilaaliso sidii lagu farayna aad ula timaado waa ghaniimo aad u weyn waxaanu rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu sheegay qofkii soomana ee sunnada nabiga waafaqay sallallahu alayhi wasallam soonkiisa maalinta qiyaamana inuu farax leeyahay markuu afuray inuu farax leeyahay labada goor bay inuu farxayo waxaynu ogsoonay qofka marka afurka la soo hordhigo ee uu afuro inuu farxayo naftiisu ay furfurmayso qalbigiisu uu degayo gaajadii iyo kulaylkii iyo culayskii ay soo dhow ka degayo maalinta qiyaame ajarka soonkiisii marka la siiyana wuu ku farxi doonaa siduu rasuulku ballan qaaday calayhi salaatu wasalaam ku dheeraan mayno laba cibaadaadka soonka ku tacalluqa waxaa ka mid ah alqiyaamu salaatuleysha in la tukado salaatuleysha tukashadeeda waxaa ka soo arooray rasuulka sallallahu alayhi wasallam laba xadiis bisha ramadaan oo dhan buu u sheegayaa ajar xadiisna waxa uu sheegayaa tobanka dambe xasanaad ku gaana habeenka leylatu qadriga qofka istaaga waxa rasuulku sallallahu alayhi wasallam xadiiska Abu Hurayra uu warinayo xadiiskaasoo Bukhari iyo Muslim ba ay wariyeen oo mid waliba kitaabkiisa saxiixa uu ku wariyay man qaama ramadaana iimaanan wa ihtisaaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi qofka bisha ramadaan u sooma isagoo rumaysan ilaahay ajarna ku dalbaya bimacnaa ikhlaas ay ka tahay ajar uu ku doonayo dambigiisii hore oo dhan baa lagu dhaafayaa dambigaasi kabaa'irtii maaha dambiyadii waaweyneed maaha waa saqaa'irtii baa lagu dhaafaya haddaan toobad la raacin haddii toobad la raaciyana sagiiro iyo kabiiraba waa lagaaga dhaafaya macnuhu wuxuu dhacayaa bishii ramadaan qofka ilaahay dartii u istaagaya ee tukanaya salaatuleysh iyo taraawiixda markuu u istaago hadduu wax allaaliy wixii dambi uu sameeyey intuu soo xaadirsado wixii uu xasuusan uu garanayo uu ka murugoodo oo ilaa ilaahayow xumaantaan sameeyey waan kaaga toobad keenay dhammaanteed oo uu go'aansado dib inaanu ugu laaban ama shay xaaraan ku dhacay ha noqdo ama waajib uu ka tagay ha noqdee oo dabadeed taa uu ka jasmiyo qalbigiisa isagoo aan faraha kula jirin tawbad baa la yiraahdaa salaada waxa lagaaga dhaafayaa sagiiro iyo kabiiro dambi weyn iyo dambi yarba waa lagaaga dhaafayaa haddii se salaada qura uu tukado dambiyada lagu dhaafayaa waa saqaa'irta oo aanu xaadirsan tawbad isla xadiidka Abu Hurayra rasuulku ka wariyay Bukhari Muslim bay warinayaan wuxuu rasuulku khasisay leylatu qadriga qofka ilaahay waafajiyo ee istaaga wuxuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam man qaama laylatal qadri iimaanan wa ihtisaaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi laylatul qadriga qofka tukana isna sidoo kale dambiyadiisa lagu dhaafaya labada xilliba taraawiixda 20 ka horena ku dadaal inaanay maalinna ka tagin habeenna salaadu ku dhaafin oo aad ku tukato adigoo waliba salaad kasto tukanayso qalbigaagu xaadir uu yahay ku dadaal tobanka dambana si gaar ah inaad u sii ilaaliso aad tukatid waxaan baraarujinayaa hal shay bisha ramadaan maadaama ay tahay bil qofku uu fududiyay naftiisuna ay fududahay xididadii dhiigga shaydaanku mari laana ay ciriir yihiin shaydaanka in la xidho waxa laga yaabaa qalbigiisu inuu qofka jilco qalbigiisu markuu jilcana in ilmadiisa uu hanan waayaan laga yaabaa naftu waxay iska jeceshay ammaanta iyo faanka qalbiga wax kaaga soo dhacaya sidaa daraadeed waxaan ku talinayaa salaatuleysh markaad imanayso cumaamadaada iska soo qaado safkaaga hore iska gal cumaamadaada madax iska saar haddii ilma kaa timaadood oydo si aan lagu dareemin oo qofka ku xiga aanu dareemin laga yaabaa qof inay ka xoog weynaato ilmadu laakiin haddaan cumaamada wanta wajigaaga bal arki waayo waxaa laga yaabaa adiga xataa qalbigaaga ugu yaraan inuu kuu badbaado oo uu ku nabad qabo ilaalinta cibaadada sidaa loo ilaalinayaa macnaheedu wuxuu yahay si ay wax kuugu jirto hadhow bal waxaad soo iibsataa 5 midho beeda inta labana jeebad ku ridan midna jeebada ku rido saa doonta u soco soo kaa jabi maayo ama intaad beedi dhagaxaan isku gurto soco bal soo kaa jabi maayo cibaadadu way ka qaalisan tahay shay kastoo la ilaaliyo dahabkaynu aragnay ma garanayo waxa la sheegay dahablayaashu dahabka inay qufulaan oo ilaaliyaan waxay yiraahdeen shay kasta dahabka uu xadaa xataa quraanjadu way qodaan jiirku uu xadaa shay kasta waa lagu saliday sidaa daraadeed waxa la sheegay hargeysa qaarkood inay qasnad weyn u sameeyeen oo marfish habeenkii ay ka soo ruuxiyaanba oo qasnada ku qufulaan subaxdiina ay ku daadiyaan haddana marfishka cibaadada iyo taacada aad gudanaysa miyana ka qaalisan waxa soo dhan miyaanay mudan
ama aanay mudnayn habeen kasta saacad kasta inaad xisaabtanto ibnu qayyim wuxuu rahimahullah qofka muslimka waxa la gudboon inuu amalkiisa 3 goor dul istaago xisaabiyo amalka intaanu u kicin sida markuu weysaysto ama uu bilaabayo wax bixinta quraan akhris amal oo dhan wanaagsan intaanu bilaabin su'aal waan isweydiin ma ilaahay dartiiba ka timsi ujeedo kala ku jirta waa inuu qalbiga saafi ka dhigo amalka markuu gudagalana waa inuu gaar ka hayo inuu shaydaan wax ku soo dhex tuuro inuu ka ilaaliyo amalka markuu ka faaruqana waa inuu u ilaaliyo amalka wixii naqsiye galay sidoo u kabilaha ilaahay wuu inoo naxariistay ummadii hore 50 salaadood bay tukanayeen inagu waxaan tukanaa 5 salaadood oo kaliya waxa la inoogu kabay salaadaha nawaafisha leeyahay ee 12 afar duhur ka horeeyay laba ka dambeeya waa imsi soo lix ma laba marka ka dambeeyo waa 8 laba cishaa ka dambeeya waa 10 laba subax ka horeeya waa 12 kaasi gaad waxay u yiin oo baas way u yiin oo ilaalinayaan 17 ragcadood ee aad tukatay habeenkii maalintii naqsigoodana waa lagu kabi gurina jannada lagaaga dhisi oo rasuulku sallallahu alayhi wasallam man salla fi yawmin wa layla 12 rak'a bana Allahu lahu baytan fil janna qofka ku dadaala habeen iyo maalin 12 ragcadood oo nawaafil oo ka baxsan waajibaadka guri buu ilaahay jannada uga dhisaa sunnayaashii kale oo dhan hadday tahiyatul masjid iyo hadday tay witri iyo hadday tay cibaadaad kale oo salaadaad qabanaysaan dheeraad bay ku siiin sida daraadeed cibaadadaadii taacadaada sidaad maalkaaga u ilaaliso iyo caafimaadkaaga si ka daran u ilaali oo hadayeen arinta saddexaad ama cibaadada saddexaad bisha ramadaan ku tacalluqda waa quraan akhriska waa bishii quraanka la soo dejiyay ramadaan quraan akhriskuna yaraysi male عبد الله بن مسعود وحو رسول كوري سيد ترمذي جامعي سو كوري الشيخ ناصر نور حديث صحيحه من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنه قفك اخري حرف كتابك الهي كمده حسنه كهل يا ابو رسول كوري عليه الصلاه والسلام والحسنه بعشر امثالها حسنتنا طبعا لا بالو غدغيا ولو طبعا لا بيا هذا الرسول كوري صلى الله عليه وسلم لا اقول الف لام ميم حرف ألف لام ميم أو دمبا اسكو حرف أورن مايو ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ألف كينا وحرف حسن لغا قريه لام كينا وحرف حسن لغا قريه ميم كينا وحرف حسن لغا قريه لغو طبن لابيو ألف لام ميم وصدن حسنو يوبي كسي بدن قفك اخريه سوره قفك اخريه جزء كاخريه لبا كسدح اخريه كافر اخريه كيلهي نعميه شن iyo wax ka badan akhriya isagoo u fiirfiirsanaya bal maxaad u malayn sidoo uga farqabsanayo iyo sidoo uga qaniimeysanayo waxa rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu ku yiri xadiiska Abdullah ibn Amr al-Ma'asu ka warinayo Ahmad Muslim kiis ku saaray Sheekh Naasir uu xadiis saxiixa as-siyam wal-Qur'an yashfa'ani lil-'abdi Qur'aanka iyo soonku waxay ergow yihiin oo u ergeynayaan adoonka maalinta qiyaame yaqulu as-siyam rabbi منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه صونكي أجركيس يا حسناتكيس بأورنا يا إلهيو وحانو ديدي عنتدي يا عبتانكي مالنتي إلهيو إرقيد أقبلوا جنة القلب وحو رسولك صلى الله عليه وسلم ويقول القرآن قرآنك أبا المرنتي سيوي أي الله قوضا وهي إن القرآن كلام الله ليس بمخلوق يقول ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه قرآن كنوح ورانيا هبين كيبان هردد أديدي علماء واحد هذين قيام الليل وحوقويا الهرقع عشاي كدب هداود هرقع تكتو وحكى له ولد رقع قرأ تكتو وتقول والله كو أخرده قيام الليل بيكون طاي هلا قادر تسرعيه وكسدح وتكي تكنيا كشن تكنيا كتودما تكنيا كوبيو تمن تكنيا هكاسر ريان بهدي ليدي كودا أقبله هل أيا قيام الليل كون قرص حسن له قرية رسولك صلى الله عليه وسلم فيشفعاني قفك وحي ورجينيان قرانك أول مرنتيسي يصون كيبا ما أنت قيامه قفكينا إلهي حسن وين بوكسينا يا آخر أنت قرانك وآخريه نبي محمد صلى الله عليه وسلم بشهر رمضان وقدم بيساو دنتي لما قور بود مية وتبير ولد مية صلوات الله وسلامه عليه شيخ الإسلام تيمية صار المسؤول كوحو كويري ختمدي وقدم بيسير رسولك صلى الله عليه وسلم وجبريل لد مية قرآنك
وختمة ما أنت رسم عثماني قال لقوا قري قفنا وما بنانين وخلاف حذيفة حكى صار وري وقت هذا كم إذا رسولك إن لتو كذي صلاة الليل ورسولك أنتم بقرا آخرية كذبنا النساء وآخرية كذبنا آل عمران لكن ختمة دي قدام بيصير رسولكم ده سدوا آخرية البقرة ثم آل عمران ثم النساء سدا كقرآن كتاب كنا القرآن كلامنا خلاف القرآن لما كل هرمر ينكره رسولك صلى الله عليه وسلم وحاولنا شيء عدة قرية إلهي القرآن كوا آخر سنة يسوى مساجد كان إسبرية إسودقية كيكو أتكاذا ككلو كساريون كي معناها قروايا ككلو يديني ومعنيه وشيء وحاول رسولك وشيء صلى الله عليه وسلم حسناتك إنه كهل يونا يدورة وحكم ذا نزلت عليهم السكينة حسلوني بقى كسر تكتب رسولك عليه الصلاة والسلام هذا القرآن كآخر ذو أديكو وتشيد القرآن كأركي وميل كلا أنيجين ما بلي وح كلام في مشغول صنين سكينة ذا يحسلوني ده وذهليسا وهو رسول صلى الله عليه وسلم وغشيتهم الرحمة نحريس إلهي بدبوا ليس وحفتهم الملائكة ملائكة بقربه هذا وهرين يسوي رسولك عليه الصلاة والسلام إنه ما أركين لك من الرمينينا وحوقوين إنه رسولك صلى الله عليه وسلم وذكرهم الله في من عنده إلهي نوح كشاقا كوا أكتيس عدد شوفتهم ملائكتيس إلهي يوقفوا هذا القادر ما عاقا حطي مع كامقا وحكامقا نمتشب إلهي كوا هين وقرأ دبقنا الله دافو حقنا هين وفتشير عبادة وقدم بيسا ولا عليار يكون سوا ختمية وحي تاين قود انت بشهر رمضان عبادة كنت على القوحة كم ذا إن عد كلا قوديو ووحى رسول كسر ورتي حديثك زيد بن خالد الجهني وكوري حديث كاسو إمام أحمد يا غير كيبا يوريان شيخ ناصر نوري حديث صحيحة من فطر صائما قف صوما أفري أبو النبي صلى الله عليه وسلم أما مالين أفري أما صدق كربلان وضع أفري أما أفري يرسي تمر يبي قرا أما راشين قدر كل ويسوق ده جلسة قف أفري أبو الرسول صلى الله عليه وسلم كان له مثل أجره أجر كيس أجر لم يدوه ليه غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء يظن لقى نقصامين قف كيسو من أجر كيس وحبا يظن لقى نقصامين نبي صلى الله عليه وسلم أدبو أدق بدنا بشهر رمضان بلا كلام وكدونا عبد الله بن عباس وحيري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحوها مدق بدن خير كان أدق دقا واحد يغلي سوى يسيب بدنا بشهر رمضان بيقولي عبد الله بن عباس رضي الله عنه قفك مسلم كان وعصار إنه النبي محمد كقد يضد عليه الصلاة والسلام ورسولك صلى الله عليه وسلم ما داموا بشهر رمضان مد ديق سنميدي سويسيس يدو هذا واحد لا يقول بهاي واحد بعين سامها يراضين إن بشهر رمضان بلها كلا أتكل الدودو وبشهر رمضان واحد بدن أبيسوي واحد بعين كرتو هذا يتهاي مال هذا يفيد بيو وحين جوا نكسين وليهن عربته قف أبو حسين بن يا تون ملو بيو كلي تون ملو بيو يرير مساج وصف كورس ودنيا مد بوحو أود يا كيلو تمرة الباب كمساج كل يستاجي أنتو كيلو تمرة تأفره قف كسوق كعب سامي أفر ومساج كسوق قال يا صدق ملو تمرة كلام حي إنه ما بقى ودنا نما نقول مالين تناركين مساج كيلو تاجين كيلو تمرة نقول من الناس كم تهدين يقول هذا ساعة ولا تاجين ما أود لها عد عيد ولا يستاجي يا أفر ساعات ما صدق ساعات صدق كيلو تمرة سوق هذه كل بكيلو بدمينيا مد يلا ومد سلوا قلب حي لوجا قادنا يوم أيوة كل مين يكيلوجا هذا ناكل مد كلوا صوب حي هل كيبو للتاجين سلاد وسوي تكنيا هذا أنا هل كيبو لسوي يستاجي قاركود واحد سميان كبدأ عسوا ضدكم كواي حدان أبدا لبي أفرتن كولا قياس كان نمبر سجال نمبر سيدات نمبر 8 أي سوق هذا يا مسياجكم الباب كي صار لقيه يوم بعد يكون قفك كواه لقى حدا ما كبيه وين لبدا دعس كم فرنيه خيركم ما يرى شن كوناش لما لقيه بينكم أنفعه مسياجتك وحلاقي هذا حبة صفتي بشر رمضان سوي بسوي مسياجك أتكنتي إن قفوا بهنا أما تمر فراك قلت عليه أما بهنا إنه قاتوا أصل لقى قرا إلهي دم بيجينا هنافع دقيقة بحين تيدنا الله ينوافقيه حقنا الله ينسلسيه دم بيجي وارد كما الله نافع ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إلهي رمضان هين النبي قبل قارسيو إلهي روب كيسا ينوشو إلهي روب كيسا ينوشو إلهي أباراه إنك رفعيو إلهي أباراه إنك رفعيو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك